bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan halkani waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa qodobada caawa aan wararkeena oo idinku haynana waxa kamid ah labaatan suxufi oo shalay xabsiga loo taxaabay oo maanta dib u helay xornimadoodii murashaxa jagada madaxweynaha ee xisbiga udub dhaxdiisa ahna qoraaga buugga diiwaanka qosolka Jamaal Cali Xuseen oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ayaa habeenkii xalay ahaa jaamacadda magaalada Burco ku soo bandhigay buuggiisa diiwaanka qosolka qaybtiisii labaad koox badbaadiyaal ah ayaa wali ku howlan markab laga leeyahay dalka Talyaaniga oo badweyntu ay liqday qiimo dhimis boqolkiiba 30 ah ayuu ku dhawaaqay in uu ku sameyn doono shidaalka madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan intaasi daawadayaal waa qodobada caaw warkeena ugu door karoon haatana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan labaatan suxufi oo ka tirsan hay'adaha warbaahinta ee ka howlgala dalka Soomaaliland ayaa maanta dib u helay xornimadoodii kadib markii ay shalay ciidamada booliska ee Soomaaliland xabsiga u taxaabeen faafaynta warkan waxaynu hayay wariye Ibrahim Cabdiraxmaan wariyaashii ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa galabtaas la sii daayay kadib markii lagu guuleystay waan dhex martay labada dhinac waa saxaafadda iyo xukuumadda wariyaashan ayaa saldhigga dhexe magaalada Hargeysa ku xidhnaa 24 saacadood lamana cadayn sababta dhabta ah ilaa hadda xorriyadooda loo haystay marka laga reebo cabasho ay la hortageen aqalka madaxtooyada Soomaaliland ay ku doonayeen in dib loogu soo celiyo xafiiska xarunta Home Cable TV oo ay xukuumaddu xidhay sidoo kale lama oga sababta keentay in cabudinta inta loo geysay saxaafadda Soomaaliland iyadoo falkaasi noqonayo mid taariikhi ah oo xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo u gala baalka taariikhda ah markab sidii dalxiisayaal u dhashay dalka Talyaaniga oo ku qarraqmay xeebaha dalkaasi ayaa ilaa hadda kooxda badbaadiyaashu ay ku howlan yihiin sidii ay u soo samata bixin lahaayeen dadkii markabkaasi saarnaa inta warkan waa kan wariye maxamuud axmed cali askar markabkii dalxiiska Talyaaniga oo wali aan lahaynin dadkii la waayay kooxaha badbaadiyaasha oo ka howlan badigoobka dadkii la la'aa kuwaas oo ku jiray markabkii dalxiiska Talyaaniga ayaa wali la tartamaya waqtiga sidii ay uga soo saari lahaayeen rakaabkii wali la laayahay halka markabkaas oo daqiiqada ka sii dambaysa hoos ugu sii degaya biyaha badda ayaa hadda waxa uu markabku hoos u degay 70 mitir waxaana marba marka ka sii dambaysa adkaanaysa soo badbaadinta ciidii nool ee ku hadhay markabka gudahiisa ilaa hadda dadka dhaawaca ayaa cagacagnaya 68 ruux iyadoo ay ku dhinteen 5 qof oo ka tirsan dalxiisayaashii saarnaa markabka waxaan wali warar sugan laga hayn tirada dadka la laayahay oo hore loo sheegay inay yihiin 40 kuwaas oo xaqiijiyeen qaar kamid ah rakaabkii saarnaa markabka qaar kamid ah rakaabka saaran markabka oo ka soo jeeday dalka Isbaanishka ayaa maanta gaadhay Madrid kuwaas oo ka waramay siduu u rogmaday markabkaasi isla markaana waxay dambiga dusha uga tuureen shirkadii lahayd markabka oo sahashatay ilaahdeen kaxaynta markabkaasi madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in uu dalkiisa u sameyn doono qiimo dhimis dhinaca shidaalka ah faafaynta warkan waxaynu hayay wariye Maxamed Shiciir aw Ahmed madaxweynaha dalka Nigeria Musre Goodluck Jonathan ayaa ku dhawaaqay talaabo uu ku joojinayo shaqo ka fariisiga ay bilaabeen shaqaalaha dalka ee kuwaas oo ka cabanaya kurukaca batrool oo dawladdu joojisay lacag ay ku badhay taari jirtay dalka Nigeria in muddo 7 ay ka socdeen isku soo baxyo lagaga soo horjeedo dawladda Afrika ugu shidaalka badan ayaa maanta ay ku diirsadeen shacabku hadalka ka soo yeedhay madaxweynaha dhinaca kale ciidamada amniga dalka Nigeria ayaa amar lagu siiyay inay kala kaxeeyaan mudaharaadkan oo laga sameeyay gudaha dalka ururka shaqaalaha Nigeria dib u dhigeen waxayna ururka shaqaalaha Nigeria dib u dhigeen mudaharaadada iyagoo wada wali shaqo ka fadhiisiga ay hore ugu dhawaaqeen jaamacadda Carabta ayaa wali ku howlan kala shaandhaynta warbixinta ay gudida jaamacadda Carabtu ay u saartay qaska iyo qalalaadka ka jira dalka
suuriya sidii ay uga baaraandegi lahaayeen. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariye cabdiraxmaan xirsi kaahin ilka case. wakaalada wararka ee Sharqul Awsad ayaa shaacinaysa in gudida jaamacadda Carabtu fadhi yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee Carabtu ay ka soo qayb galaan 22ka bishan kuwaasoo falanqeynaya warbixin kormeerayaasha Carabtu ay ku joogeen dalka Suuriya isla markaana go'aankii kama dambaysta ah ka soo saarayaan. waxaa la filayaa in kormeerayaasha jaamacadda Carbeed ee ku sugan dalka Suuriya qadooda soo afjaraan 19ka bishan kuwaasoo warbixintooda ugu dambaysa u gudbin doona jaamacadda Carabta. wareedadan ayaa intaasi ku daraya in 2 cisho ku qaadanayso lafagurka warbixintan ay ka soo gudbinayaan kormeerayaashu. golaha wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ayaa 22ka bishan ka tashanaya go'aanka inay kormeerayaasha la kordhiyo in shaqadooda halka lagu soo gabagabeeyo, balse xogayaha jaamacadda Carabta mudane Nabil Arabi ayaa isaga si adag u difaacaya shaqada kormeerayaasha, waxaanu tilmaamay in joogitaanka Suuriya dhiirigelin ku sameynayso kacdoomayaasha mudaharaadka wada, halka uu amiirka dowladda Qatar uu isaguna ku tilmaamayo in ciidamada Carbeed loo diro dalka Suuriya hal si loo joojiyo buu yidhi dhiigga rayidka ee reer Suuriya. magaalada Mosul ee dalka Ciraaq ayaa lala beegsaday qaraxyo aad u laxaad weyn kuwaas oo sida la sheegay ay ku dhinteen dad aad u tiro badan. qaraxyadan oo ka dhacay xaafadda ay degan yihiin daa'ifada Shubaak ayaa waxaa la sheegayaa in ilaa hadda ay dhimashadu sare u sii kacayso. waa kan mar kale wariye Maxamuud Axmed Cali Askar. 8 ruux ayaa ugu yaraan ku dhintay halka 4 kalena dhaawacyo ka soo gaadheen qaraxyo lagu fuliyay gaadhi laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo saaka salaadii hore lagu beegsaday deegaanka Bardalo oo u dhow magaalada Mosul. saraakiil ka tirsan ciidamada dalka Ciraaq ayaa sheegaya in qaraxan lagu bartilmaamsaday xaafadda Qadiir oo ay degan yihiin reero ka soo jeeda daa'ifada Shubak. khatiirta u warramaya wakaalada wararka ee France Press ayaa sheegay in dadka ku waxyeeloobay qaraxan ay kamid yihiin dumar iyo caruur kuwaas oo loola cararay bay yiraahdeen dhaawacoogii cisbitaalka magaalada Shubaak ayaa ah qowmiyad isku tagay oo ka mid yihiin Carab, Kurdi iyo Turkmaanistaani kuwaasoo degan tuulooyinka dhanka bari kaga teedsan magaalada Mosul kuwaasoo lagu qiyaasay tiradooda ilaa 30,000 oo qoys. magaalada Mosul ayaa lagu tiriyaa meelaha ay degi jireen al-Qaacida taasoo dagaalo aad u qaraadh ay ku kala dhex mareen ciidamada Mareykanka. haddaba wadanka Ciraaq ayaa maalmihii u dambeeyay xasilooni darro ka jirta iyadoo sabtidii la soo dhaafayna la bartilmaamsay shiico ku sii jeeda maqaamka Ali radiyallahu anhu kuwaasoo nin naftii hura ah isku qarxiyay isla markaana ay ka dhinteen 60 qof. waxaana iyaduna xusid mudan in ra'iisul wasaare Nuur al-Maliki digreeto ku dalbaday in la xidho madaxweyne ku-xigeenka Daariq al-Haashimi oo ah nin sunniya kaasoo isku dhiibay maamulka Kurdida. si kastaba ha ahaatee dowladda Ciraaq ayaa la circiiraysa qaraxyo intii ka dambeysay intii ay ka baxeen ciidamada Mareykanku oo dhawaan bishii Disembar ee la soo dhaafay ka baxay wadankaasi. ruur aan tiradooda ilaa hadda lahaynin ayaa ku dhimatay qaraxyo ama duqeyn lala beegsaday Jubbada Dhexe ee dalka Soomaaliya. waa kan mar kale wariye Cabdiraxmaan Xirsi Kaahin ilka case. wararka ka imanaya degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oo sida ay wararku sheegayaan laga leeyahay dalka Kenya ay duqeyn adag u geysteen degmadaasi. duqeyntan oo ahayd mid aad u adag isla markaana argagax ku reebtay dadka deganaa ayaa si gaar ah loola beegsaday saldhigga degmada ku leedahay xogaga Al-Shabaab. laakiin waxa ay wararku sheegayaan in mid ka mid ah madaafiicdii ay ridayeen diyaaradahaasi uu ku dudhacay guri saldhiggaasi u dhow. gurigaas ayaa gudihiisa waxaa ku dhintay in ka badan 6 caruur ah, waxaana la leeyahay gurigaasi uu madfuucu ku dhacay waxaa deganaa gudoomiyaha degmada Jilib oo la sheegay inuu caruurta dhimatay isagu dhalay. dadka deegaanka ayaa ku warramaya in duqeyntaasi ahayd mid khasaare xoog leh gaadhsiisay dadka shacabka ah gaar ahaan caruurta iyo waliba iyadoo ay waqtigan kala xirxiranayaan in ka badan dadkii ka agdhadhowaa goobaha ay madaafiicdu ku dhaceen. degmada Jilib ayaa duqeyntaasi waxa uu noqonaysaa tii labaad ee khasaare ugu xoog badan ka soo gaadha dadka rayidka ah, waxaana xusid mudan in duqeyntii tan ka horeysay ee lala beegsaday degmadaasi ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux oo rayid ah. warkii
oo daawadayaal aad kala socoteen telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa waa naga intaaynu warkan mid lamid ku kulmi doono waa anigu jacaadan cunaaye iyo dhamaanba khiyaarta telefishinka Bulsha TV oo kaga tagaysa sidaas iyo nabadgelyo